munaasabadan ay ku soo bandhigaysay jaamacadda Somafil qaabka kuliyadda shidaalka iyo engineering petroleum ee jaamacadda ay ugu qayb qaadan karto horumarinta qodista shidaalka dalka Soomaaliya uu soo qaban qaabiyay maamulka jaamacadda Somafil oo kaashanaysa wasaaradda batroolka iyo macdanta ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay xafiiska ra'iisul wasaaraha dhinaca arrimaha bulshada, kusimaha xogayaha joogtada ee wasaaradda batroolka iyo shidaalka, mas'uuliyiinta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha arrimaha bulshada, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, xubno ka socday akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta iyo marti sharaf kale. qaar ka mid ah dadkii ka hadlay munaasabada ayaa si weyn u soo dhaweeyay in la helo aqoon-yahano bartay cilmiga shidaalka iyo macdanta. jaamacadda Somafil waxay leedahay kulliyado kala duwan. maanta waxaanu joognaa kulliyadda petroleum engineering. agaasimaha waaxda tababarada wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha arrimaha bulshada Ismaaciil Macalin Cabdullaahi ayaa sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo dhameysatay jaamacadaha dalka ay la garab taagan yihiin ka wasaarad ahaan sidii ay u hormarin lahaayeen dhinaca aqoonta. waliba haddana naloo baro maxaa la yidhahdaa dowladda looga soo bilaabo dowladnimadu maxay tahay, maxay qabataa dowladda, istraatijiyada dowladnimadu muxuu yahay, kala dambeynteeda dowladnimadu maxay tahay, maxaa shirila, maxaa shacaba. gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa kula dardaarantay ardayda jaamacadda Somafil inay ka qayb qaataan horumarka wadanka. 20 sano kadib burburkii dhacay, hooyo walba oo Soomaaliyeed waxay u tafaa'iidatay sidii ubadka u ilaalin lahayd oo soo saari lahayd. agaasimaha dhinaca arrimaha bulshada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maryan Aadan Amiin ayaa ku boorisay dhalinyaradu inay ka qayb qaataan sidii ay u soo saaran lahaayeen barwaaqada dalkooda hooyo. ninka maanta petroleum la baro ee tuuladteena ka dhisto ee buraashadiisa garab istuurta ee noodkiisa farnayar oo ku jirto hore u qaata matooriyadna dhigto cida u baahan yahay Ameerika joogaaya. kusimaha xogayaha joogtada ee wasaaradda batroolka iyo macdanta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xuseen Cali Axmed ayaa tilmaamay in wasaaradda batroolka iyo macdanta ay garab taagan tahay horumarinta qodista shidaalka Soomaaliyeed. in xaq loogu leeyahay goobta uu ka fulinayo inuu mataqaana ka fuliyo barnaamijka horumarinta bulshada oo lagala tashanayo dadka meeshaas degan. موسى عثمان أبطو تلفزيون كقرن كصوماليات مقدشة.